halkani waa radio Karamarda idaacadaha iyo lambadeyaasha iyo qasaasadeyaasha la gubtay dhageystayaasha dhagaa dhuuban oo kusoo dhawaada warka gafuurkiisii warkii oo saddexdeen qatana waxa idin haya wariyihiisii shaa oo hadda shaaca idinka qaadi doona dhageystayaal kusoo dhawaada warka madaxdiisii wararka aan caawayna ku haynana waxaa kamid ah dagaal baan dhaxsada ciidamada Basra iyo kuwa qubanta iyo khasaaraha lacag kale la iskaasiyay jiirka ganacsatada ka baxa magaalada Jilcani oo weyn oo 70 jir oo isaguna ku go'doomay suuqa xoolaha silada jigjiga jiir Amerikaana oo dalxiis oo ku go'doomay dalka Djibouti laba diyaaradood oo qaada xalaalin xafaariin iyo xogsato kale booyada ka muujiyay mudaharaad dawladda soorteeda iyo warar kale oo caalami ah oo aan halkan idinku hayno dhageystayaal qaasi wuxuu ahaa warka madaxdiisii kuna soo dhawaada haatan isagoo fitan waxa idin haya wariyanaaninu dagaal baan ayaa dhaxsada ciidamada Basra iyo kuwa qubanta waxa la isku adeegsaday hubka sida darandooriga u dhaca sida darbaaxada nooca indhaha jirta sabaxada nooca shafka xoorisa dameerada nooca raaranada ka dhunta tamuujada qanjiidada wajaasta iyo waliba afsaarka nooca ilkaha daadiya keesada marka sanka lagu dhufto dadka kororka ka keenta iyo waliba qalab kale oo caalami ah dagaalkan waxa uu ka dhacay khayraadka cinkeetinka ayaa la isku hayaa waxa ku barakacay cayayaan aad u tiro badan sida tiraqaaga kabarjaanka iyo cayayaan kale oo tiro badan waxay u baahan yihiin in la soo gaaro kaalmo xawayaan bini'aadamnimo haddaba dagaaladan oo iyagu socday maalmaha ugu dambeeyay ayaa waxaa la sheegayaa in la soo riixay lana soo wajaafay dhinaca iyo ciidamada Basra iyada oo hadda ka hor uu isticmaalay gudoomiyaha Basra hogaaminaya dagaalna sabaxada nooca shirka xorta iyada laga mamnuucay dagaalada sokeeye hadda ka hor dagaalkan ayaa waxa uu socday muddo tan ilaa 7 ah waxa la sheegayaa in hadda ay ku casarayaan ciidamada qubantu dadka kale isla saacada gudahood oo wariyaha iyaga loo yaqaano nyaanyu ayuu khadka ku jira ayaa hadda wuxuu taxtaagan yahay saylada suuqa xoolaha jigjiga waxa uu soo sheegay in orgi weyn oo 70 jir inuu hadadan garooday lama sheegin sababta keentay garoodkan balse khasaare laxado aad u ballaaran ayaa waxa ayuu geystay garoodka orgigani afyano ay orgigan ayaa wuxuu sheegay in laga keenay meeshii la yiraahdo Taymacad iyadoo biyihii baa soo nabadgelin haddaba dameerada nooca u soo baran rashada ka dhacay suuqa xoolaha silada jidka marka loo yaqaano dhulka ayaa raasi wanaagsan orgigii kadib orgigii waxaa loo qaaday dhinaca isbitaalka Karamarda iyadoo dad badan oo aad u careysan ay go'aan ku gaareen inay maraqiisa iyo hilibkiisa ay cuni doonaan orgigaasi orgigan oo galaftay 4 dilaalata iyo 4 weyn oo ka ganacsada hilibka ayaa waxaa la sheegay in uu dameerkaasi uu kadib wadnaha istaajiyay jiirka ganacsada ka baxa magaalada Jacsi sida Jantaar gaanta ayaa kaas ka soo raray jiirkii iyo jaadkiiba waxaa loo leexiyay dhinaca iyo magaalada Jigjiga jiirkan oo jaadka ku soo galin jiray hadda ka hor LC ayaa waxay finaas ku eedeeyeen inuu hadda ka hor bilaabay jaadka loo yaqaan taajarada inuu ku soo galiyo kontraband jiirkii iyo jaadkiiba waxaa loo leexiyay dhinaca iyo jibriga finaaska magaalada Jigjiga ay u leexiyeen iyadoo lagu dhintay cashuur aad u kulul jiirkan oo keeni jiray jaadka nooca loo yaqaan dhaadheerka gaagaabka ortada iyo raaciska kan kale isaga loo yaqaan monsterka dhaadheerka nooca la baraarida isagoo jaad kala duwan soo galnay afaynaha la dadka tayilo indhuhu aad u cajihiin amaansina ilaa iyo suuqa maanta dhaafayay xaaladiisuna ayna caadi ahayn indhuhuna ay cajiin ayaa shaaca ka qaaday oo afku shuushalay hadii jiirkii iyo jaadka wada soo deyn waayo in uu taqsiintiisa ay ragaasi taqsiintooda ay rag badan ku taqi doonaan dhageystayaasheeda dhigaha duuduubano jiir Amerikaan ayaa ku gooriyay dalka Djibouti lama sheegin sababta keentay dilitaanka jiirkan balse afaynaha la jiirkaasi waxa sheegay inay ka dambeeyeen jiirada argagixisyaal oo ku nool dalka Djibouti lana keeni doono sharciga maxkamadda caalamiga ee Hague jiirarkaasi Djibouti hadday soo dhaweydana jiirarka Mareykanku ay ku qaadi doonaan jiirarka ku nool dalka Djibouti dagaalka dhan oo loo adeegsan doono B52 jiirarka nooca ay xagga dambe ka ridaan laba diyaaradood oo qaada xalaalin xafaariin xoog iyo xoogsato kale ayaa rakaabkooda u bedelay dhinaca kale safarka diyaaradahan waxay qaadatay 70 milyan oo saacad inay hawada ku sii jiraan haddaba waxay ku burbureen samada cirka loo yaqaano wuxuu sheegay wariye u hadlay samada wuxuu sheegay in ayna cidna joogi karin cidii haysata Sky Passport nooca loo yaqaano passport cirka oo kaliya inuu ku noolaan doono goobtaasi dadka kalena la soo daadajin doono dhageystayaal wariyihiisa shaa wuxuu idin leeyahay warka oo aan laga soo xiriiri doontaan www.cintin.com dhageystayaal idaacadan oo radio Karamarda la yiraahdo isku fankaraysa oo hadda ka horna wariyaal badan shaqada laga eriyay halka kala soo xiriira shaqooyin badan ayaan idin haynaa aad iyo aad ayaan maasantii warka halka inoo shaqaalaado tan iyo mar dambe intaan hawada ku kulmi doono ayaan idin leeyahay sidaas